waxa magaalada Hargeysa laga daahfuray iskuul cusub oo magaciisa loo yaqaan Havelock Primary School waxaana iskuulkani lagu dhigi doonaa manhajka dalkaas Ingiriiska waxaana iskuulkani cusub ee Havelock Primary School hirgeliyay Maxamed Aadan Cali Himilo oo hore u ahaan jiray fanaangeyga Soomaalida laga yaqaan iyo waliba xaaskiisa iskuulkan ayaa waxa uu ka kooban yahay barbaarinta caruurta iyo waliba dugsi hoose dhexe ugu horreynba waxa sharaxay iskuulkan iyo waxa lagu dhigi doono Maxamed Aadan Cali Himilo oo ahaan jiray fanaangeyga Soomaalida laga yaqaan wadanka ayaan ku soo noqday si aan dadkayga iyo dalkayga wax u taro waliba meelaha ugu hoosaan ka bilaabo hadaan macallin iskuul ka noqdo waaba intaasaba ugu fulan imika waxa aan ka furnay magaalada Hargeysa waliba Star Area school magaciisa la yiraahdo Havelock Primary School manhajka wax lagu dhiganayaana uu yahay ka Ingiriiska oo lagu kordhiyay Carabiga iyo diinta iyo Soomaaliga dad qaar hadii doonaan Soomaaliya talma heeso baraya carruurta ma haysan lama barayo waxa la barayaa waxbarashadii caadi ahayd heeso runtii waxay ahaayeen hobby oo de wax kulli talent aan leeyahay part time bay ahaayeen laakiin kulli dad badan ay soo yihiin inaan cilmiga kala leeyahay oo jaamacadda ka soo baxay marka wax weyn waxaan soo bartay man dadka baray ma wixii talentkaygu ahaa laakiin wixii aan soo bartay dibadda iyo qurbaha ku soo bartay ayaan doonay carruurtayda inaan ku barbaariyo baro كوثر إسماعيل عثمان وحاسكا محمد آدن علي هيميلو إسلام مركانا وحبضا وحكسو ديغسي اسكول لدى كويا لمقالة لندن أيا وحا يشرحات كقبي حسي وحا ويسكول كان كقدوان يهي اسكول لدى كويا للسومالي لان وحا كانوا كقدوان يهي اسكول كان اسكول لدى كلاكا جرى هرقيسا was visual stimulation بصنية it does you learn through just ماها معلنكو كليا مسوغيسيد بوغاغو كليا مسوغيسيد مر والبا واد waxba ilmi baranaya hadii uu jaranjarada socdo waxbu baranaya marka waxa si kaga duwan yahay iskuulada kale ee ku yaala Hargeysa maanta waxaan doonaynaa in mar walba iskuulada nusan noqdaan ay carruurteenu ay baran karto waxbarashada mar walba noqoto sida caalamka oo kale 1 and 2 ilmu markuu yahay waxa weyn ilmu markuu yahay 6 jir ilaa 7 jir 6 jir ilaa 7 jir wuu bartay ilmihiisa sida wax loo qoro laakiin kelmadaha Ingiriiska ku jira oo isku si maqalkooda yahay laakiin qoraalkooda aan ahayn ay kamid yihiin kuwan oo dhan waa sidaas waa through and through waa exactly the same through laakiin midna macnihiisu waxa weeyaan meel bustaagu hoos uga dhaxdusay midna waxa weeyaan waxbuu tuuray waxaad ku kala garanaysaana qoraalkooda marka ilmihii mar walba loogu celcelin waa inay bartaan kelmadaha isku si ah Maxamed Aadan Cali Himilo oo hore u ahaan jiray fanaangeyga Soomaalida laga yaqaan iyo waliba xaaskiisa ayaa ahaa qurba joog dib ugu soo noqday dalkooda Soomaaliland isla markaana ka hirgeliyay iskuulkani Havelock Primary School ee ka kooban barbaarinta caruurta iyo dugsiga hoose dhexe Cabdirashiid Cabdi Wahaab Xuseen Universal TV Hargeysa